faa'iidooyinka ugu jira wuxuu yahay inay dhul ku qaataan xukunka ku sameystaan calanka ku bedeshaan calankii EPRDF ee nidaamka orthodox-ku ka muuqday kaniisadaha iyo fataxa naga ay ka ku dhex jiray inay ka tagaan meel geedka weyn laga soo geliyo adigu shucuubta oromada oo 50 milyan ah in ay noqdaan ownerka rasmiga ah ee EPRDF iyo Abyssinian-ku ay u lahaayeen 19 ilaa 90 ilaa xilligii Mengistu iyo Miliq iyo Haile Selassie iyo muuqda shirka ay AGBB qabanayso ee ay sheegayaan in ugu diyaar garoobayaan shirweynahaas ay sheegeen maxaa marka faa'iido ugu dhex jirta qoomiyadaha kale ee Soomaalidu ka mid tahay ee ka dhex muuqda goobahaas oo meesha uu dib ka imaan doonto kuwo sheeganaya ONLF oo qalb dhagax xurboodiyo iyo Sheekh Ibrahim Dheere oo inay dhex fadhiistaan meesha lagu soo arko lagu soo sawiro sideedaba taariikhda xusi doonto qofka meesha taga meesha qodobka 39aad ay ka tashiga qoomiga meesha lagu kala goynayo qofka taga meesha dirdhabo lagu qaadanayo Soomaalida laga qaadanayo qofka taga meesha la leeyahay awoodda federaalka la siinayo ay leeyihiin dawladda federaalku go'aan waxay gaari kartaa mar walba cid ay doonto in ayadu ismaamul ka dhigi karto oo haday doonto deegaanka Soomaalida 5 jeer inta u kala jiro waa biyo dhigi karo intaasna waa gobol intaana waa gobol intaana gobol qofka taga meesha khayraad walba ummad ay leedahay mushaar qaat ma matasho ma fahantay 5 qof hada dhowr Ibrahim Usmaan iyo Aadan Faarax يا مصطفى حسين قاسين يا دولة الحلحالي ما مثل كران صومالي أحد القرامات واحد اللي النيشن واحد أمتنا وقومية وكوبي 2 مليون وقانا جارس هذي مثل كران عبد الله مثل لها الجبور بمثل لها داود بمثل لها حسن ما حنقول هاي خضر مع العلي بمثل لها كوي كوريو دم بمثل لها ما مثل كران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن داودياشana qiimaha badan oo ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta ee wakaalada wararka ogaadeenaya ona waxaynu haduu Allah awood la ogolaado ku dul istaagi doonaa shirweyne ay sheegeen Ethiopia inay qabsanayso waxaynu wax ka weydiin doonaa Mustafa Maxamed Cilmi Mustafa Sado aad oo maasantaa shacabka waan dhawahay waye Ethiopia waxay sheegeen inay qabanayaan shir ay ugu magac dareen shirweyne qaran bal muxuu yahay shirkaas شعيب هورت إثيوبيا ما قبسنا الشركة وحاق قبسنا أورمدا هي أنت وصعب بس قومية أورمدا إسكال حزب جبيبي بقى جندها إسكال كورنيل أبي يشمل سبديسة يماير كما قال هذا سوا قرشان سو أبو شيء لا حل هورنا ويودين أبينا وحد مدودة لول لقت حي لا شيء إنه مرضونا وقادر دونا mar horeyta siyaasiyiinta Soomaalida waaweyn iyo sidoo kale aqoon-yahanada iyo kuwa oromada iyo kuwa axmaarada ay ka hadleen abiyo wadada mari doono oo ay dhaheen wadada step mari doono wadada marka u dambeeyana qulqulka meesha ku burburin lahaa qaranka cadaalad darrada ku dhisan Ethiopia waxa loogu yeeray jamhuuriyadda cadaalad darrada ku dhisan Ethiopia inuu asaga ku dambeynayso oo ku baabaays marka wadadii uu maraya wadadii mid kamid uu rabaa hadda inuu qabto la ogaa 5 sano way soo socotay inuu shirweyne qabsanayo shirweynahan uu shirweyne qaran ugu magacaabay mid lamida sidii 1990 ilaa 1990 ay BRDF qabsatay sabab ku qabsatay kii oo kale uu rabaa inuu qabsado marka Ethiopia ma qabsanayso waxa qabsanaysa qoomiyadda oromada oo shaarka Ethiopian-ka xidhan say shaarka Tigrayga qoladii u xidhnaayeen Mustafa waxa sheegtay shirweynaha in oroma qabsanayso sida hadalka ka dhawaajisay waxa tiri maayarka Addis Ababa Abi iyo Shamal Sabda oo madaxweynaha Oromia maxay marka iyagooba haddii talada gacanta ku hayaan maxay uga baahan yihiin shirweyne qabsadaan mayda shirweynaha tala gacan ku haynta iyo sharciyeyntu waa kala gooni waxna waa la sharciyeeyaa waxna waa inaad xukunka haysto adduunka wax legacy la dhahaa lagu sameystaa sharciyad bay rabaan inay sameystaan sharciyadaas oromada maxay u qabsanaysaa inay magaalada dirdhaba qaadato magaalada Addis Ababa inay qaataan inay sameeyaan xukun waligii oromizm oo waliba oromada oo dhan ma aha nidaam cadaalad darro ku dhisan oo koox gaara oo kristaan waliba oromada oo dhan ma koox gaar oo kristaan oromada muslimiintu way wali sidii EPRDF u gumaysanaysa loo gumaystaa inay nidaam gaar ku dhistaan oo wax ku qaataan uma aha inay u dhisanayaan xukunka way haystaan biri haday ay ka tagaan waxay rabaan wax Oromo nation inay kaga tagaan kristaan Oromo nation uu leeyahay inay kaga tagaan rabaan oo magaalada Addis Ababa finna oo la bixin magaalada Dirdhaba hadda waxa kulamada gudida wada hadalka qaran wax la leeyahay waxa la kulmay aqoon-yahan ka socda jaamacadaha oromada iyo deegaanka oromada way kala hadlayaan magaalada Dirdhaba gorgortan laga gelin bileeyna anaga iska leh shirweynaha qaran iyo la geyn waxay hadda maanta iyo shalay ay ka wada doodayaan marka faa'iidooyinka ugu jira wuxuu yahay inay dhul ku qaataan xukunka ku sameystaan calanka ku bedeshaan calankii EPRDF ee nidaamka orthodox-ku ka muuqday kaniisadaha
iyo fataxa annaga ay ka dhex uu ku dhex jiray inay ka tagaan meel geedka weyn laga soo geliyo adigu shucuubta oromada oo 50 milyan ah in ay noqdaan ownerka rasmiga ah CEBRDF iyo Abyssinian ay u lahaayeen 19 ilaa 90 ilaa xilligii Mengistu iyo Miliq iyo Haile Selassie iyo Yohannes iyo laga soo bilaabay ilaa Najash say Abyssinianku waxaan imbraadoriyada Etoobiyaanka ay ugu koobnaayeen ilaa shirki 19 loo sharciyay nidaamka EBRDF in intii la sameeyay dalad weyn lagu qabsado Ethiopia waliga Tigreego 4 milyan oo ku haysto aragtida oo kale ay la yimaadeen xisbi BB la dhahay sameysteen xisbiga BB la dhaho waa in shuruudo la sii sameeyo marka wax shuruudaha hadda waxa kamid ah shirweyne inay qabtaan qaran shirweynaha qaranka waxa kamid ah in magaaladii Addis-Ababa magaaladii Dirdhabo nidaamka xukunka baarlamaanka dhaqaalaha calanka diimaha luqadaha waxa soo dhan in nidaam yani wado Oromo la saaro wayna u socdaan hadda Dirdhabo iyo waxan oo dhan inay ku qaataan marka faa'iidadaas ugu jirta way matali karaan Soomaalidu nation 5 qof oo mushaar qaatay ma matasho ما فهمتي شنقف هذا دور إبراهيم عثماني آدم فارح يا مصطفى حسين قاسين يا دولة الحلحالي من مثل كران صومالي ده أحد القرامات واحد اللي نيشن واحد أمتنا وقومية وكوبي 2 مليون وقاني جارس هذي مثل كران عبدي لي مثل لها الجوربة مثل لها داود مثل لها حسن ما حنقول هاي خضر مع العليمة مثل لها كوي كوريو دم مثل لها من مثل كران وكشوف كار كاركuna uu dhamaada sideedaba hadhaagaagu markii gaadhaan hadhaagaagu yar yahay waa iyagu ka dhamaanaysa marka Soomaalidu meesha qayb kama aha hal baa sumcad xumaan noqon doonto sumcad xumaan waxaa noqon doonta waa marka lagu arko ma waxaan ka yaabayaa anigu oo meesha uu dhib ka imaan doonto kuwo sheeganaya ONLF oo qalb dhagax xurboodayo iyo Sheekh Ibraahim Dheere waa oo inay dhex fadhiistaan meesha lagu soo arko lagu soo sawiro sideedaba taariikhda xusi doonto qofka meesha taga qofka taga meesha qodobka 39aad ay ka tashiga qoomiga meesha lagu kala goynayo qofka taga meesha Dirdhabo lagu qaadanayo Soomaalida laga qaadanayo qofka taga meesha la leeyahay awoodda federaalka la siinayo ay leeyihiin dawladda federaalku go'aan waxay gaari kartaa mar walba cid ay doonto in ay ismaamul ka dhigi karto haday doonto deegaanka Soomaalida 5 jeer inta u kala jiro waa biyo dhigi karo intaasna waa gobol intaana waa gobol intaana gobol qofka taga meesha khayraad walba ummad ay leedahay ودولة فدرال كجاري كرتو قف كتجا نظام كفدرال كها اللي قول سنا وحنين كان كم 2% مثلا هو فدرال كنا تجا because في عدالة سومالي لو ما معمله وحصل إنه وحي اللي قلت هتري قف ماشي كقرب كلو كقرب جري دونان هو تيجي دون وانا لصاق أبيه وناس أحسن دونا واحد because في إتكور يستاهل ساعة مجرته أفكو كده هيا because سببته وضدي بها يا الله شيء هاي ماشي قول كاي بيو قدام بس قلت كان أبيه مال بقوة إثيوبيا ما قاعدين ولي وحول السعودية فيري ما فهمتك مركا وحو إيمان دونا كوا كقرب قلا يا سومالي ده شيء يسمى ثلاثة قوميدو أحمر ده قلات وحيالا بدون كوا فقسنتو يدنتي ده كده حركات جدا ورمضو جاية ده بس كله سومالي مرة بطن كمالي هل فائدة كم قبض سومالي واحد على كهدي اللي بدلو كرمضان بالقوة ترى يجيد كي قضب صدنا سجالة وحبة فائدة ومجد واحد وفجته شنطن ماشي تجي أبسيني اللي بدليا شنطن لما حقه أرمي أبسيني سيستا ماشي سيستا شنطن إن كل شيء مقعد كوترين هذا تكان هذا شن إن أيكو أي تكان سومالي مبدأ الحكم بدليا لكن مو سومالي بوتر 91 كيف قوة تجي وياه 91 كيف هو سومالي تجي شركة سوا بالقضبة لقى جد وديو أي مهين نبدأ قضبة قرول بكل كول بوحبي صوب النجيان لكن وحنا صوب النجد نف ملأ أبيه وحربه واحد وميم سنة وأبيه وحربه حتى قضب كسرتني سجالات مهم أبيه ومعها أحمرهم بواي كوا بشيء قضب كسرتني سجالات مهم ومعها because of state أمور ربعين ودسوا state أمور ما نمكلا تجي وامسين هاي ومجال هذا تسوى إلا حق النبوب إلا حواسة إلا مويالي إلا محنقول هاي دبربنهان يكون بالجا أنت إنه سكحرن state وين ورا ما ليه هاي نودستور ربع إني نكلا تجي إنه وجاي waxa ugu muhiimsan waa biyo soo xaway caalanka nidaamka maamulka ee wadankan lagu maamulay federaalka inuu week ka dhigo awoodaha dhan federaalka uu keeno haday noqoto sida khayraadka loo qaybinayo haday noqoto go'aamada masiiriga sida loo gaaro haday noqoto dawlad deegaanada cid maamulaysa wuxuu kala u socdaa inuu ka guuro nidaamkan baarlamaan presidentalka prime ministerka oo nidaam presidentala
nidaamada presidentialka nidaamka madaxweynaha markii loo guuro waxa fiican madaxweynuhu shacabku soo doorto laakiin haddana awoodi meeshii madaxweynaha in ra'iisul wasaaraha meesha laga taatiro madaxweynaha lagu qoro haddana wali baarlamaanka wadanka uu ahaado oo baarlamaanka xisbiga awoodda badan soo baxa inay ku doortaan madaxweynaha waxyaalahaas u socdaa qodobka 39 waa waxay keeneen in meesha ka bedelaan calanka go'aamada magaalooyinka iyo dawladda nidaam walba oo maamulka goboleedadu ay awood ku lahaayeen in la wiiqo hoos loo la dominate gareeyo wuxuu socdaa waxa weeyaan awoodii federaalka inuu burburiyo nidaam centralism oo xoog badan u guuro waligiina uu ku xisaabtamo hadduu asaga joogo iyo hadduu ka tagaba inay qoomiyadda oromadu ay ahaato kuwa meesha xukumo oo meel allaale laga bilaabo ilaa maxaan ku dhahaye city iyo ilaa afdheer cirafka u dambeeya iyo ilaa Sudan iyo ilaa maqale agteeda nin Oromo inuu haysto awooddaasna oo awood federaal oo centralism ah uu ku xoogaysto wuxuu socdo waa inta wixii ka soo baxana waan arki doonaa ee kale waxaan rabaa qodobka ugu dambeeyay ee aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay ergooyinka ka qayb galaya qaabka loo xushay tirooyinkooda hadda si guud uma caddo ergooyinka kuwana deegaamada la siinayaa say sheeganayaan ayagu horta wax meesha tagayo dhan waa BP wax allaale wax meesha tagaya hal xisbiin baa tagaya hadduu ruux walba meesha tagaya waa ruux mabaadiida xisbiga BP aaminsan magacu doonaa loo wato 150 magac baa loo kala bixin kuwa deegaankeena tagaya kuwa 100 magac baa loo huwin kuwa dhaqamo loo huwin waxaad arki doontaa kuwa wasiirro magac sheeganaya suldaan hebel baan hayle oo deegaankeena ka tagay horjoogayaasha kuwan waa qof walba oo meesha tagaya oo shirweynaha la rabo in la casuumo oo yani ka qaybgalka waa qof mabaadiida xisbiga BP ku tagaya sidii hadda waagi dhowto doorasho dhaxismada maqal oo 3%kiiba 99%kiiba 100 buu ku guuleystay 100% mabaadi tan kurti gacantay wada taag dhowr hadda eeg ninka ka deegaankeena la leeyahay la talin buu u yahay deegaanka Soomaalida qofka la talin buu leeyahay odayga la leeyahay shirka uu qabto tababarada qabta waxa weeyaan ninka aaminsan abiyeenu wax uunan ka aaminsanin ba ma jira badee muuqaaladiisa wareysiisa daawatid wareysigiisu dambiyo bixi waa daawan kartaa dolaal xalxali wuxuu ka sheekeynay waadiga arki marka asagu markuu dhoomay Soomaali buu matali ninka abiyata kama aaminsan ma matali kartay qof aragtile ma aha aragtida uu leeyahay waa aragtida abiye ee madamarta sidamar inadamar andum tafaadi way marka ergooyinku waa erga BP waa laga yaabaa 200 in la siiyo sida la sheegayo haddana in gudi ururada bulshada ururka haweenka culimadiinkan waa waxyaalahaasna in ergooyin baa laga siin doonaa kulay laakiin hadda si tiro guud oo caqabada uu ku leeyahay Soomaali dhulkeeda lagu qaadanaya maxaa caqabad u hadhay maxay tahay haddii dhulkii baa la qaaday magaalada Dirdhaba kale mayn bay ka tahay waa waxa laga hadlayo waa waxa aan la qarsanay miiska saaran magaalada Dirdhaba caasimadda taariikhda loo yahay waxa taariikhda khayraadka Soomaalida sida awoodda federaalka iskale awoodda khayraadka percentage bana walka hadlayna Soomaa go'aanka gaarida federaalka iskale waxa laga doodayaa sharciyada luhaanshaha dhulka qodobada ku jira marka wax Soomaalida ugu mid kale Soomaalida waa qoomiyad dulman Soomaa waa dad la gumaysto nidaamkan federaalka ay ku yar nooleed oo dhaxgalka in yar aan ku badbaadinay intiina hadii laga tago dawladda lagu socdo la weerarayo waa Soomaaliga mid kale Soomaalida waxa ku Soomaalidu waa dad u taagan xurriyad mabaadi ay ka tashi oo qodobka 39 u qeexiyo Soomaalida iyo qoomiyadaha qaarkood Soomaalida iyo Oromadu waligeed waxay u taagan mabaadi ay ka tashi qodobka 39 si khaas u taabanaya Soomaalida mana ogolo waa wax hatta wax walba oo dominate gareynay Soomaalida qodobka 39 wax walba kaas oo uga daran Soomaalida marka Soomaalida meel baa uga banaano Soomaalida sideedaba shirweynaha Itoobiya qabsanayso shan qof oo Itoobiyaan hadda isku timaado Soomaaliga waa qofkii lixaad Soomaa shantaas way iska raaci waa la ogyahay marka shir ay Itoobiya isku timaado waligeed Soomaalida dan muna u noqon